maanta aad ugu faraxsanahay in booliiskii Soomaaliyeed oo maanta muxuu ahaa sida u labisan oo isugu jira muxuu ahaa rag iyo gabdho isugu jira oo maanta tababar ku qaatay wadankan Djibouti magaalada Djibouti tababarkaas oo ah ilaalinta xeebaha waan aad iyo aad ugu baahannahay sababtoo ah Soomaaliya waxa weeye waa dalka ugu xeeb dheer Afrika muddo badanna muxuu ahaa aad u dayacnayd waxaan rajaynayaa maanta inaad qayb weyn ka qaadan doontaan ilaalinta xeebaha Soomaaliyeed dhan kasta ha noqoto dhanka dambiyada muxuu ahaa lagu galo xeebaha ha noqoto ay ka mid tahay dhinaca trafficking dadka laga dhoofiyo ama ha noqdo waxyaabaha mukhadaraadka laga dhoofiyo amaba ha noqdo xitaa dadka muxuu ahaa ka kalluumaysanaya xeebaheena waxaan rajaynayaa maanta in dawladnimadii Soomaaliyeed meel weyn ka soo noqonayso haddaana waxaa iska leh dawladda Soomaaliyeed waxaa ma hadda iska leh taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa kaloo si gaar ugu mahadcelinayaa dawladda Djibouti oo maanta tababarkan bixisay idinkuna waxaan idin rajaynayaa in Ilaahay idin fududeeyo hawshiina Soomaalida badda saas uma fiicno muxuu ahaa intaasoo bad dhar leeg anagoo haysana ayaa haddana manaafacaadkeedana aad iyo aad ugu yar yahay inta kalena aad ku dartaan oo ah in manaafacaadkeeda badda markaad idinku aragtaan in muxuu ahaa aad shacabka Soomaaliyeedna sidoo kale u gaarsiisaan inay aad iyo aad muxuu ahaa uga dhawaada waa safaaradda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa idinkoo hadda tababar ka soo baxay aad timaadeen laakiin waxaan rajaynayaa mustaqbalka idinkoo shakhsi ah inaad u soo hilowdaan oo aad u soo noqotaan halkana idinku soo dhaweynaa insha Allah waa mahadsantihiin